سبحان سركالا غارما سعدان سركالا غارما سعدان سبحان لا سالوقي ما سركالا غارما سعدان سبحان لا سالوقي ما سركالا غارما سعدان سبحان لا سالوقي ما سركالا غارما سعدان سبحان لا سالوقي golaha wasiirada ee golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle maamulka iyo bulshaweynta degmada Warshiiq guud ahaan mas'uuliyiinta ku sugan goobtan oo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo guud ahaan marti sharafka goobtan ku sugan waxaan idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam allah ma haddaas iska leh oo anagoo nabad isu kaaya keenay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshaweynta ku nool degmada Warshiiq oo maamulka degmada hor kacayo waxaan leeyahay wafdiga aan hogaaminayo sida qiimiga leh oo wanaagga iyo qalbi furaashada ku dheehantood u soo dhaweyseen waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin ilaahay idinka abaal mariyo waxa kale oo ka mahad celinayaa isku duubnida bulshaweynta degmada Warshiiq sida isugu duuban yihiin oo ay dhinac isugu jeedaan waa uga mahad celinayaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin annaga ujeedkaynu safarkaynu maanta wuxuu ahay laba qaybood oo ahay mashaariicdan inaan dhagax dhigno iyo inaan ogaano xaaladda guud ee ka jirta degmada Warshiiq labadaas oo ahay ujeedkayna safarkayna labadaas qodob oo ahay waxaan rabaa inaan iraado bulshaweynta degmada Warshiiq wad mahadsantihiin sida isugu duubantihiin mashaariicda wada aragtiin waa bilaaw mashruucan dadku deegaankan ku nool waa laba qaybood qayb waxay noloshooda ku tiirsan tahay badda iyo kalluumaysiga qaybna xoolaha maanta mashruucan waa mid ku saabsan badda dhinaca badda ku saabsan waayay waa suuqii maaragtay malayga iyo dhagax dhigi idana dayactir ka socda degmada labada qaybood oo ahay insha Allah mashruucan waa ballaaran yahay waxa imaanaya insha Allah hadii la raali ka noqdo qaboojiyaashi waxa imaanaya shabaagadihi waxa imaanaya doomankii wax badan oo wax laga faa'iidi doono oo dhinacaan maaragtay agabka loogu talagalay badda waayay insha Allah hadii la raali ka noqdo mashaariicduna sidaana isu daba socotaa
hadday midda xoolaha tana way imaanaysaa laakiin bulshada ku nool guud ahaan Hirshabeelle gaar ahaan degmadan hadda maanta aan ku sugannahay waxaa laga rabaa inay isku duubnaadaan waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan nabadgelyada deegaanku hadduu nabadgelyo ahayn horumar ma imaanayo waad arkaysiin Warshiiq horumarka ka socdo ee sanadba sanadka ka dambeeyo sidii u balaaranayso iyo mashaariicda waaweyn ee ka fulayso waxay ku timiday ilaahay amarkiis iyo nabadgelyada lagu dadaalay iyo dadkoo dhan isula jeedo ee wad ogtihiin Hirshabeelle degmo maanta konsalkeeda ay bulshada soo doorteen waxaa ka jiro degmada Warshiiq kuwa kalena waa rajaynaynaa laakiin dadaalkiina ay ku timiday bulsho isjecel bulsho inay wax isla qaybsato rabto waxna qabsato ayaa konsal doora karto konsalka faa'iidooyin badan uu leeyahay horumarka uu qayb ka qaadanaya iyo qof aad idinku aad ku kalsoontiin inaad dooratiin on dekereeta ku imaanin faa'iidooyin badan ay leeyahay konsalku waa rajaynaynaa degmooyin kale oo dhiman ee Hirshabeellena inay sida iyaguna isu dooran doonaan oo dad rabitaankooda uu ku yimiday ay hogaami doonaan haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad u mahadsantihiin waqti kululaad joogtiin mashaariic badana is soo daba taallo waxaa la idinka rabaa idinkana inaad ku dadaashiin nabadgelyada deegaankan waad ogeedeen gogolaha hadda la soo laabay dib u heshiisiineed inaan colaad dambe iyo dhibaato dambe ina deegaanka ka dhicina la idinka rabaa dadku waa dad walaala waa dad ahla waxa deeqana waxaa ka jiro diris wanaag iyo walaaltinimo iyo isxushmayna anfacayso horumar ballaaran deegaanku waa gaaraya maanta walaalka inaad dib u geysataan adduunka kuma fiicno aakhirana kuma fiicno horumarkii socdana waa hor istaagaya waxaan idinka rabaa sidaad ugu dadaasheen nabadgelyada loogu dadaalo insha Allah horumarkuna waa isdaba socoyaa aad iyo aad u mahadsantiin ballantayna waa inaad saan isugu duubnaatiin inaad nabadgelyada ku dadaashiin insha Allah anaguna mar walba saana idinka warqabayna haddii ilaahay raalli ka noqdo guuleysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.